madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu taliyaha guud ee ciidamada booliska Somaliland u magacaabay Generaal Maxamed Aadan Saqadi Dabagale oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada militariga Somaliland sanadkii 2004 ilaa 2011 waxa uu ka soo qalinjabiyay kulliyadaha ciidamada dalalka Ethiopia iyo Ingiriiska isagoo ka gaaray Stafford College ama banduulaha sare waxaanu sidoo kale soo noqday taliyaha howlgelinta ciidamada militariga Somaliland taliyaha cusub ee ciidamada booliska Somaliland ayaa Zab TV wax ka weydiiyay dareenkiisa isagoo si kooban u sheegay الله نوفر وهول قرن وياني ما يميل شيران كنت أول صور هذا الدولة حلو كدو وشرا وسلاح مقشة dhinaca kale madaxweynaha Somaliland waxa uu taliyaha ciidamada booliska Somaliland u magacaabay Cabdi Xasan Mire oo hore u ahaan jiray taliye qaybeed qaybta bari Hargeysa sidoo kale soo noqday saraakiishii ugu caansanaa ciidamada booliska Somaliland waxa uu sidoo kale ka mid noqday saraakiishii ciidamada booliska Soomaaliya waqtigii dawladii Maxamed Siyaad Barre adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida